السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي سودواده كسودواده مركله iyo magaalada Muqdisho iyo anagoo idin duubnay quruxdeeda ma sha Allah waxaan waqti badan gelinay sidii aan idinku soo gudbin lahayn muuqaalkan quruxda iyo qaayaha leh ee aanu markaa kaga hadlayno magaalada Muqdisho runtii waa magaalo 10 sano ugu dambeeyay si fiican u dhismaysa ama si fiican u koraysa oo aynu ka dareemi karayno ama ka garan karayno sida ay u dhismayso meheradaha ka jira ee ku soo kordhaya casriga sidoo kale waxbarashooyin kala duwan ee ay u dareerayaan ardayda iyo dhalinyaradu sidoo kale dalxiisayaasha iyo dadka ku cusub ee ku soo noqonaya magaalada runtii waxay noqotay magaalo heer sare ah isla markaana soo dhaweynaysa dhammaan bulshooyintii Soomaaliyeed ee ku kala filiqsanay daafaha caalamka waa magaalo runtii kobaceeda qof walba uu dareemi karayo 10 sano ugu dambeeyay wixii iska bedelay waxa ku soo kordhaya dabaqyo dhaadheer fooqyo dhaadheer baa ku soo kordhaya oo runtii quruxdooda iyo qiimahooda leh bilicda magaaladana kor u qaadaya maalinta ka dambaysa qofkii ku nool baa aad u garanaya dadka soo booqdana sidoo kale si weyn bay u dareemayaan isbedelka ka muuqda meherada digital oo cajiiba oo runtii heer casri u adeegaya oo aan sidii hore old version ka ahayd bacadlayaal waaweyn meelo supermarketiya dabcan hadda halka aynu socono ama aynu ku sii soconaa waxa weeye suuq Madiina ayaynu ku sii soconaa waliba gaar ahaan suuq Liif ma sha Allah waa xaafad runtii iyaduna aad qadiimi waa isla markaana iyada lafteedu aad u dhismaysa meherado kala duwan runtii ay ka dhisan yihiin sidoo kale magaalada Muqdisho waa magaalo aan soo dhan karayno waxay la wareegi kartaa mar labaad hadii amniga iyo waliba nabadgelyadu ay sida u sii ahaadaan oo dawladnimaduna ay xoogaysato awoodaysato waxay mar labaad dib u la wareegi doontaa quruxda magaalooyinka ugu horeeya geeska Afrika ama Afrika oo dhan waa magaalo runtii qadiimiya oo aad u qurux badan oo waliba si heer casri hadda loo dhisayo ama loo naqshadeynayo ama loo design gareynayo taasina waxay keenaysaa inay soo jiidato araga indhaha dadka bulshooyinka caalamka marka waa meel aan runtii intii aan joogay aan aad ugu damaashaaday ama aad aan ugu dalxiisay isla markaana aan aad ula soo wadaagay bulshooyinka Soomaaliyeed quruxda magaalada Muqdisho fiidiyogan insha Allah wuxuu noqon doonaa fiidiyogii ugu dambeeyay ee magaalada ka duubo ama ka qabto ee aan la soo wadaagay markaa asxaabtayda qaaliga ee ku taxan channelkeena Axmed Daawud channel waxaan idin leenahay mar walba nala socda mar walba nagu xidhnaada mar walba channelkeena wuxuu u taagay inuu soo gudbiyo quruxda bilicda iyo waliba magaalooyinkeena Soomaaliyeed mid baynu u tagi doonaa mid baynu runtii u soo duubi doonaa mid walba waxay ku horeysay ta kale kaga horeyso waxay ku qurux badan tahay ta kale kaga qurux badan tahay magaalada kale waxay runtii soo dhaweynteeda iyo sida ay u soo dhaweyso dadyoga ku soo hoyanaya ayaynu runtii mid walba ka soo qaban doonaa hadda waxaynu dhex maraynaa magaalada Muqdisho oo runtii kobaceeda aynu arkayno waa jidka weyn ee bartanka ee loo yaqaan dabka ama loo yaqaan waxa la yiraahdo kilometer 4 ma sha Allah marka waxaanu leenahay sidaad arkaysaan ma dhismayaashu si cajiiba ayay runtii u dhisan yihiin oo ay u socdaan sidoo kale maalinta ka dambaysa wuxuu baa ku kordhayay waxba kama sii dhacayaan oo waxba hoos uga dhacayaan marka waxaanu leenahay ku soo noqda magaaladiini qurba joogta Soomaaliyeed dhista horumariya casriyeeya idinka ayaa wax iska dhigi kara idinku ayuun baa soo jiidan kara oo ku soo dhaweyn kara dadyogeeni kale Soomaaliyeed inaga maqnaa waxbarashadu ha awoodaysato sidoo kale kor ha loo qaado IQ-ga iyo dhismaha dhalinyarada Soomaaliyeed taasina waxay